musharaxa golaha deegaanka degmada Gabil Cabdiraxmaan Nuur Abokor oo ka sharaxan xisbiga muxaafadka ee Kulmiye oo socdaal ku marayay deegaanada koonfurta gobolka Gabiley ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo dhaweeyay deegaanada ay ka mid yihiin tuulada Taysa iyo deegaanka Tincada oo hoostaga degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley bulshada tuulada Taysa iyo deegaanka Tincada ayaa musharax Cabdiraxmaan Nuur Abokor gacmo furan iyo caleemo qoyan ku soo dhaweeyay iyagoo la garab istaagay taageerada ay musharax Cabdiraxmaan Nuur Abokor u hayaan bulshada deegaanada Taysa iyo Tincada oo ka hadlay soo dhaweynta ay u sameeyeen musharaxa golaha deegaanka degmada Gabil Cabdiraxmaan Nuur Abokor oo nambarka astaanta codayntiisu yahay xisbiga Kulmiye 205 ayaa sheegay in ay musharax Cabdiraxmaan Nuur Abokor taageero cod iyo cududba ay la garab taagan yihiin sidee hadalka u dhigeen Cabdiraxmaan Nuur Abokor si fiican bay aynu soo dhaweynaa aad baynu cod kala si wanaagsan aynu siinaa Allahumma salli ala Muhammad waan dawladda soo shaqeeyay aad baynu waxa weeyaan nin qaali ah waa nin karti leh waa nin aqoon-yahan ah haddaynu nahay deegaanka Taysa horta nin firfircoon oo inoo yimaado xilliga ugu xumayd inala soo dabaashay Cabdiraxmaan Nuur Abokor waayo raggu iskuma jiro in badan baynu geynay gobolka Gabiley oo kuwa hore aynu horreeyay nin waxay noo qabtay horena noo qabtay dib inoo qabtay bayna arag maanta kaasi waa nin karti leh waa nin baashay waxaan leenahay been isku sheegi mayno codkiisa codka aynu horaan leeyahay galada ku leenahay ku soo dhawow tuulada Taysa oo aad iyo aad lagaaga taageersan yahay dadka reer Taysadna waxaan leeyahay kulana dardaarmaya waxaan Cabdiraxmaan Nuur Abokor isagoon ahayn xildhibaan ayuu weeyaan adeerka seerum markii la oomanaa wax idin qabtay waa degmada Tayso kaliya waxba uma qabanin laakiin degmooyinka Allay Baday ka kooban tahay gobolka Gabiley ka kooban tahay iyo in kalaba sidaanu maqalay aad iyo aad uu wax ugu qabtay oo waxa weeyaan qaybtii biyaha ee markaa inoogu darnay hadaba waxa weeye abaal waa la gudaa waxa weeye naguna maxayna la gudboon maanta inaynu codkeena siino si hagar la'aana diyaar ma yihiin sidaasaan isku ognahay rag iyo dumar wanaagsan oo soo dhaweysan xildhibaanka Cabdiraxmaan Nuur Abokor waad ku mahadsantiin oo celinayna waxa weeyaan dad walaalaynu nahay dad maanta waxa weeyaan maanta maalinta aad baahnay dad Carabina ka sheegteen waxa weeyaan idinka u baahnaa maanta waxa weeyaan walaalkii baa idin baahan Soomaad garan hal cod doonaya Soomaad garan rag iyo dumarba dhalinyaro iyo waayeen wayna way ku maadsan yihiin waxa xildhibaanka maanta maxay wax qabashadiisu ma soo koobi karo usoo xogayahay maanta maxay leeyeen golaha deegaanka ku soo baxo waxa weeyaan Taysa taariikhdeeda maanta aan ahayn baan ku warsan doonaa iska arki doonaa insha Allah Ilaahay la gaarsiiyo maantana wuxuu ku socdaa hadday taagnaayeen maanta Cabdiraxmaan ha noolaado codkaasino sida maanta aynu ugu soo baxnay rag iyo dumar caruur iyo ciyaal ay codka u siino annaguna waanu kula garab joognaa sida iyo salaam calaykum weeyaan Cabdiraxmaan waa nin dawladda hore uga soo shaqeeyay wax badan ka qabtay imika haatan waxaynu ka rajaynaa in ka badan inuu qabto
musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abukor oo bulshada halkaasi kala hadlay ayaa ugu ballan qaaday in uu gudi doono abaalkooda marka uu ku guuleysto codka golaha deegaanka degmada Gabiley sidoo hadalka u dhigay musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abukor ayaa sidoo kale sheegay in bulshada deegaanadani uu wax badan ka qaban doono marka uu ku guuleysto golaha deegaanka baahiyaha aasaasiga ee arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada oo ay qaar ka mid ah deegaanadaasi gabi ahaanba ka aradan yihiin sida deegaanka Tincada oo aan lahayn goobo waxbarasho horta marka horreysay Ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baan arinku mahad celinayaa dadweynaha reer Taysaad sida wanaagsan ee qalbiga fiican ee niyadda fiican ee aad igu soo dhaweyseen ee saacada oo habeenimo inagoo joogna bishii khayrka lahayd ee Ramadaan عاونا أي تهاي حبينكي تطبيق لاتنكا إلى الترخدركا أو حبينكي دمبدافكا يمغفورة ده لبحنا وحلنا إلى هاي نجا أقبله صونكي عن صوني هنا نجا يلو تذكي إلى هاي كحرية نارتا وماكم كا تدوينا ريت السنة وحلا هاي إلى هاي حكاك اللي التخدرك كوي إلى هاي لكل السياح حبينكاس إلى هاي هكيلو ما هذه لا هي باله مالنتي هراء إنه هالكن السكون نمد والله هرادنا والله منا سيجي يبورد بان صومرني ما أنتنا وحنا صومرني ديري يرئيس يبرواقو يدوق يقيان ما هذا إلى هي باله لبضاس سوكين بدلي قليل كا يوم كا يعرض كا إنه بيهردين إني ما أنتنا إنه بيه مالا إنه كمرنا إنه لا الحمد لله رب العالمين إلهي بنقوم هذا غينا تيسوا مقالوي كقبل كقبيلة مركز العيقو أو قيمها بدن له ومقالوي كقديم جا سير بورلي إشارة تيسا هرنتا هرعداد لا أبو هرين دوكي لسوا مريشري وضدي هوري قديم جي مريشرتي مقالوي كعان كها وقت جه هوري مقالوي كواوينها أي كم ده ما أنتنا واحد تيسوا باهنت هاي horumarkeeda iyo sidii hore loogu marin lahaa wax looga qabto lagana hirgelin lahaa adeegyada aan ka jirin tuulooyinka iyada la jaarka si baahida ay loo baahan yahay ay halkan u timaado maanta magaalooyinka waxa dib u riday oo inaga baabiyay meel walba waxaanu ka sameynay magaalo meel walba waxaanu ka sameynay dukaan meel walba waxaanu ka sameynay makhaayad hadaynu taa ku soconana inoo hirgelayaan inaynu dhul magaalaysan oo dhisan oo qurux badan inaynu sameysano waxa wanaagsan waxa wanaagsan inaan dhulka beeralayda iyo dhulka degsiimada ee magaalooyinka inaynu kala saarno aynanu sameeyno dhul hadii la hayra ay noqoto dhul aynu degannahay oo ay dadku ku noolaadaan oo magaalooyina oo laga helo waxbarashada ta hoose ta dhexe ta sare ilaa iyo caafimaadkii oo goobaha caafimaadka ay u baahan tahay hadii la hayra tayso oo xilka Ilaahay ku guuleeyo waxaan ku dadaali doonaa sidii ay u yeelan lahayd goob caafimaad oo daweysa dhammaan aaga ay ku xeeran oo dhan oo loo yimaado ayaan ku dadaali doonaa insha Allah inay yeelato hadii la hayra adeegyada bulshada ee dadku u baahan yihiin ee laga maarmaanka iyo baahiina aad soo gudbisataan hadii la hayra baahidu waxay ka timaadaa bulshadana u soo gudbisa dawladda marka ay soo gudbisana waa laga soo jawaabaa waxaan idin ballan qaadi doonaa wixii baahiya ee dadweynaha reer Taysaad soo gudbistaan hadii la hayra marka xilka Ilaahay nagu guuleeyo inaan sida ugu dhaqsaha badan leh uga soo jawaabi doono meel kasta gasho iyo meel kasta oo khuseysana aan noqon doono kii idin daba gala ee xaqiin iyo xuquuqdiina idin raadiya aad xaq ugu leediin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya hadii la hayra wanu isku soo noqon doonaa markale wanu isku imani Tincada baa lagu sugayaa oo sidiinana kale u taagan iyagana imkaan u tagi doonaa hadii la hayra aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dalkiyo dadkaba wiidadii lahaa deegaaniyo baarlamaan durkooda in loo tartamo ayay dulucdeedu tahay
dalkooda in loo tartamo ayay dulucdeedu tahay. عليكم ورحمة الله وبركاته. deegaan keegan kan cadabarigiisu wuxuu dhammaan isla qaatay inuu Cabdiraxmaan Nuur Abakor dhammaan u codeeyo isagana uu ka alla sugo wax qabashadiisa dadii soo isku maynaan raacin Cabdiraxmaan codeyno soo isku maynaan raacin mid aynu ku dooranay soo maaha maalintaynu bakhtiyaynay ninkiina soo xasuustay soo maaha inaynu dooranno ma wax qabyaalada ku dooranay qabyaalad kuma inaan dooran Cabdiraxmaan waxaynu ku dooranay ila ma galbeed ila bari keligii markuu xildhibaanadii reer Soomaaliland keligii warayay soo sidaa maaha soo saas kuma raacsanin dadweynaha ku nool deegaanka Tincadda oo si aad iyo aad u fiican oo qiimo leh ii soo dhaweeyay aad baan uga mahadnaqayaa waxaanan ballan qaadi doonaa haddii la haydhaa marka ay codkooga siiyaan ee aan haddii la haydhaa golaha deegaanka degmada Gabiley ku soo baxo inaan ka soo jawaabi doono waajibaadka ay doorteen iyo mas'uuliyadda ay saaraan ee ah inaan ku matalo golaha deegaanka degmada Gabiley aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaanan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin adeegyada bulshada ee aad ka cabateen haddii la haydhaa mustaqbalka haddii Ilaahay u guleeyo oo ay ka mid yihiin xanaano iyo iskuul ay u baahan yihiin in aan ka hawlgeli doono sidii aad laydinku hirgelin lahaa adeegyada bulshada aad u baahan tihiin maadaama aad tihiin dadkii u baahnaa in wax loo qabto aadna ay idinka fog tahay halka uu iskuulku ku yaallo oo maanta Tincadda aan iskuul ku yaalla aanu jirin taasina ay tahay baahi ay u baahan tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin. Salaamu calaykum. Sakariya Nuux Ibraahin, codka Bariga Afrika, gobolka Gabiley.